السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كحران جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتنتهين ما أنت واحد وأنا صدق إلا باتنك بيش كوبيت ونادى نوفمبر سنة كلا بدو كن يشان يلا باتنك وقال كان ما أنت وحن ربائنا إن كل وذاقه أرين مالمهن لإسوي ديني سومالي ذا موقتها هدي أركان فرصة مريكان لغو إيمان كرو هنقولي أيها قليا كوبك أدونك وحنقنا هدي الله إدمو سنة كالصوص عدا مريكان ككندا إيا مكسيكو أيها سوى ذا جيره ومرتقلين دونا بركا dad baa maalmahan TikTok waxay ku xayeysiinayeen haddii aad ticket World Cup hal game aad jarato Mareykan waad ku imaan kartaa arrimahaasi ayaan ka hadlayaa guddi madaxweyne Trump uu sameeyay oo World Cup ka loo xil saaray oo isagu uu ku jiro toddobaadkan shir jaraa'id aqalka cad ku qabtay maxay yiraahdeen wasiirka arrimaha dibadda muxuu ka yiri haddii aad ticket jarato Mareykan ma ku imaan kartaa arrimahaasi oo idil madaxweynaha Viva ayaa joogay guddiga intiisa badan ayaa shirka jaraa'id ka qayb gashay arrimahaasi oo idil ayaa rabaa bal inaan idil la wadaago suuragal ma tahay haddii aad ticket jarato in aad Mareykanka sidaasi ku timaado kadibna ama Canada ama Mareykan aad iska dhiibto bal soo dhawaada waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaaraynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada. 2 gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda Islaamka. 3 baridda qaabka loo guto acmaasha umrada. 4 umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin. 5 haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha. Haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona. Faafahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645942 mahadsanidin koobka adduunka sanadka soo socda haddii alla idmo 2026 bartamihiisa waxa lagu qaban doonaa koobka adduunka wadamada Mareykanka Mexico iyo Canada ayaa si wada jira u martigelin doona waxay noqon doontaa markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka oo waliba hadda la balaariyay oo 32 kooxood oo ahaan jiray 48 wadan laga dhigay hadda in 3 wadan hal mar ay martigeliyaan hal mar ay dhacday in 2 wadan ay martigeliyaan 2000 iyo labadii waxaana martigeliyay South Korea iyo Japan oo si wada jira u martigeliyay marka hadda 3dan wadan ayaa martigelinaysa Canada 2 magaalo oo kaliya ayaa ceeraha martigelin doonta waa Toronto iyo Vancouver Mexico waxa martigelin doonta 3 magaalo waa caasimadda oo Mexico City ah Guadalupe iyo magaalada la yiraahdo Zapopan saddexdaasi magaalo ayaa martigelin laakiin Mareykanka ayaa kulamada ugu badan martigelin doona 11 magaalo oo Mareykanka ayaa World Cup ka martigelinaysa magaalooyinkaasi waxay kala yihiin Atlanta Foxborough Arlington iyo Houston oo Texas ku yaala Kansas City Inglewood oo California Miami waa Florida East Rutherford waa New Jersey Philadelphia iyo magaalada San Francisco iyo waliba magaalada Seattle ee gobolka Washington State magaalooyinkaasi ayaa martigelin doona ilaa hadda 41 kooxood ayaa soo baxday waxaana jira kulamo kale oo play-off oo hadda isku aadkooda toddobaadkan la sameeyay oo la ciyaari doono 26 iyo 31 bisha March ee sanadka soo socda wali ma aysan soo bixin wadamada ilaa hadda Afrika u soo baxay waa 9 wadan waa Algeria Cape Verde Masar oo Egypt Ghana Ivory Coast Morocco Senegal South Africa iyo waliba Tunisia marka isku aadkiisana waxa la sameyn doonaa koobka adduunka 5 bisha soo socota ee December waxaana lagu sameyn doonaa xarunta Kennedy Center oo ku taala Washington marka dad fara badan maalmahan TikTok waxay ku xayeysiinayeen haddii aad ticket jarato Mareykan waad ku imaan kartaa waad iska dhiibi kartaa si fudud ayaad Mareykanka ku tagaysaa arrintu sida loo maleeyo ma aha madaxweyne Trump horaantii bishan waxa uu sameeyay guddi loogu magac daray World Cup Task Force oo guddiga koobka adduunka u xil saaran wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga gudaha iyo hay'ado kale oo ammaanka ah ayaa ku jira wasaaradda arrimaha dibadda waxay u xil saaran tahay in tikidhada loo dedejiyo dadka koobka adduunka taageerayaasha ay ka soo qayb galaya fiisuhu waa fiisa dalxiis sidoo kalena wasaaradda amniga gudaha waxay qaabilsan tahay in la sugo amniga
magaalooyinka uu ka dhacayo koobkaasi adduunka. marka madaxweyne Trump ayaa shirka jaraa'id martigeliyay toddobaadkan. madaxweynaha Viva waa uu joogay Gianni Infantino, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka amniga gudaha iyo sidoo kalena xubno kale oo guddiga ka tirsan. marka tikidku horta tikid raqiisa ma ahan. wasiirka arrimaha dibadda sida hadalkiisa aad ka arki doontaan wuxuu yiri tikid haddii aad iibsato macnaheedu ma ahan inaad visa iibsatay. processka viisaha loo marayana waan idinla wadaagaya. marka haddii aad Soomaaliya ka socoto horta wadankaadii oo wadanka Soomaaliya kama qayb galayo koobka adduunka. taageero ayaa tahay soo macnaha taageeruhu marka process ayaa jirta la marsiin doono qofku haddii uu doonayo in ama hal ciyaar amaba koobka adduunka uu soo wada daawado. marka tikidhada hadda waxaan ka fiiriyay tikid master laba tikid oo kale hadda haddii aad iibsanayso tikidka ugu yar waa $167. laba tikid rabtaa inaad isku iibsato marka kala jar lacagtaasi adiga 500 iyo 600 oo hadda waliba ay bilaaw yihiin oo laga yaabo tikidku inuu 1000 ama 2000 gaaro. labada tikid hadda waxaan fiiriyay kuwa ugu yar laba tikid markaad iibsanayso kuwa ugu badan hadda lacagtu inteed marayso waa $3000 ilaa $4000 marka laba tikid rabto inaad iibsato. marka haddii aad rabto hal game inaad daawato macnaheedu waxay tahay in ugu yaraan tikidka ay kaaga bixi karto lacag 500 ka badan ama 1000 ka badan ay kaaga bixi karto. marka tikidhadu sidaas raqiis uma ahan. madaxweyne Trump marka shirka jaraa'id oo ay ka soo qayb galeen guddiga loo xil saaray World Cup-ka waxa uu yiri 200,000 oo shaqo ay abuuri doontaa arintan dadka Mareykanka. waxaan uga mahad celiyay guddigan oo horaantii sanadkan uu sameeyay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga gudaha ay ku jiraan shaqada ay qabteen. waxaana uu sheegay in dadka taageerayaasha oo Mareykanka imaan doono vetting ama baaritaan lagu sameyn doono si ay ugu suura gasho in si fudud ay Mareykanka ku imaadaan. marka shirka jaraa'id toddobaadkan waxaa looga dhawaaqay oo madaxweyne Trump uu sheegay inay ku dhawaaqayaan wax la yiraahdo pass oo in la macnaha muhiimad gaar ah la siiyo ballamaha dadka dalbanaya fiisaha inay Mareykanka ku yimaadaan. marka waxa uu sheegay hadda 80% caalamka waxa uu yiri qofku inuu ballan qabsado oo uu helo 60 maalmood ayay ku qaadanaysaa halka markii hore ay intaasi ka badan ay ku qaadan jirtay. marka waxa uu yiri waxa noqon doontaa dadka in baaritaan lagu sameeyo interview laga qaado. marka aad rabto inaad fiisa hesho oo safaaradda timaado interview ayaa laga qaadaya. okay meeqa game ayaad rabtaa inaad soo daawato game hebel iyo game hebel magaalooyinka ay ka dhacayaan noo sheeg. bangigaada imise lacagaha ku jirto waa in la arkaa. hotelkee rabtaa inaad seexato ama Airbnb-gee rabtaa inaad seexato. lacag intee la eg ayaad qarash gareyn rabtaa. ma laga yaabaa marka magaaladaas aad u socoto magaalada hadda Los Angeles iyo magaalooyin kale ay ku jiraan oo California lagu qabanayo ma laga yaabaa in meelo kale oo loo dalxiis taga aad tagto. marka waxyaabaha soo idila la hubinaya. marka haddii aabadan bangi aadan lahayn oo wax bangi aadan lahayn macnaheedu waxay tahay in aadan World Cup-ka aadan daawan karin. maxaa yeelay bankigaada wax lacagaba kuma jiraan adigoo bankigaada uu faaruq yahay ama aadan bangi lahayn haddaad tiraahdo koobka adduunka imaanaya macnaheedu waxaa loo arkayaa inaad tahay qof doonaya in uu baxsado. arrintaasina waa arrin adag marka siiba wadamada Afrikaanka oo migrationku uu ku badan yahay xitaa kuwa World Cup-ka u soo baxay taageerayaashooda baaritaan badan ayaa lagu sameyn doonaa interview ayaa laga qaadi doonaa. arrintaasi waxay tahay in baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono dadka. marka ma ahan tikidan jartay safaaradda tagaya visa hore laga siinaya ka bacdi waan soo baxaya Mareykan imaanaya waan isdiibaya. haddii aad Mareykan visa ku soo gasho dalxiis waqtiga uu ku dhamaanaya waa inaad ka baxdaa. Canada xitaa haddii aad dayday inaad iska dhiibto labada wadan immigrationkooda waa wada shaqeeya waa lagu soo qabanaya Mareykan lagu soo celinaya Mareykan waa ku xirayaan kadibna waa ku tarxiilayaan. marka ma ahan Mareykan iska dhiibaya ama Canada iska dhiibaya ka bacdi markaan tikidkaasi World Cup ku imaado. haddaba madaxweyne Trump oo arrintaasi ka hadlayay wuxuu yiri arrintan maamulkayga waxaan amar ku siiyay wax kasto awoodooda inay sameeyaan koobka adduunka uu noqdo mid aan horey loo arkin oo Mareykanku uu gaaro. isagoo arrimahaasi ka hadlayay madaxweyne Trump wuxuu yiri and it's going to create nearly 200,000 jobs for America. Since the creation of the White House FIFA task force earlier this year, Secretary Rubio's team at the State Department has worked tirelessly with the Department of Homeland Security to ensure that soccer fans from all around the world are properly vetted and able to come to the United States next summer easily. Before I took office, it would often take a year to get a travel visa, but because of the administration's hard work now in more than 80% of the world, think of that, the wait time for a visa is 60 days or less. For those who intend to join us for the World Cup, I strongly encourage you to apply right away. And I want to thank FIFA Task Force and Secretary Rubio for
the great job. Marco's doing a fantastic job in many ways too. We're also creating what we're calling the FIFA prioritized appointment scheduling system, and this will allow World Cup ticket holders with long wait times to opt with FIFA for a prioritized interview. And I've directed my administration to do everything within the power to make the 2026 World Cup an unprecedented success. I think it's going to be the greatest. waatahay markay hadlayaan sidoo kale sida aragtaan koobkii adduunka ee dahabiga oo tiimka ama kooxda wadanka ku guuleysta la siin lahaa meesha ayuu yaalaa dhowr bilood ka hor ayaa madaxweynaha FIFA Gianni Infantino waxa uu geeyay aqalka Cataraamna waxa uu yiri halkan ha sii yaalo ilaa iyo World Cup-ka ama koobka adduunka uu bilaaban doono madaxweynaha FIFA marka Gianni Infantino isaguna waxa uu uga mahad celiyay aqalka cad in arrintan ay fududeeyeen dadka viisayaasha ama dalxiiska ku imaanaya ee Mareykanka ee doonaya ciyaarahaas inay daawadaan waxa uu yiri shirkan jaraa'id maanta oo looga dhawaaqayo pass oo ah dardargelinta ballamaha dadka doonaya inay qaataan waa arrin aan uga mahad celinayo yiri madaxweyne Trump waxana uu sheegay in dad gaaraya 6 ilaa 7 milyan oo qof oo taageerayaal ah ay imaan doonaan waxana uu sheegay sidoo kale World Cup-kan inay doonayaan inay ku raaxaystaan laakiin hal eray wuxuu yiri waxaan doonaynaa in la hubiyo dadka imaanaya oo doonaya ciyaaraha inay soo daawadaan inay yihiin legitimate fans taageerayaal dhab ah oo kubadda cagta inay yihiin laakiin ma ahan qof doonaya inuu dhuunto arrintaasina isagu waa uu ka hadlay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri your entire team for approving and making this very important announcement today. The FIFA Pass is being announced, the prioritized appointment scheduling system. That's the way people will remember it. So if you have a ticket for the World Cup, you can have a prioritized appointment to get your visa because we said it the very first time we met, Mr. President, America welcomes the world. America will welcome the world here. Next year we will have between 6 and 7 million tickets sold for the matches. We will have between 5 and 10 million people coming to America from all over the world to enjoy the World Cup. And with this FIFA Pass, we can make sure that those who buy a ticket that are legitimate football fans or soccer fans, they can come and attend the World Cup in the best conditions, starting from getting their visa and then coming, of course, in the country to enjoy. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio isaguna xubin weyn ka ah guddigan loo Trump u xil saaray arrimaha koobka adduunka ayaa isaguna waxa uu yiri 400 oo qunsuliyadood ayaan geynay guud ahaan safaaradahan caalamka ku leenahay wuxuu yiri dadka si ay ugu fududeeyaan taageerayaasha doonaya inay imaadaan oo koobka adduunka ay ka soo qayb galaan si ay ugu fududeeyaan viisayaasha waxa uu yiri qaar kamid ah safaaradaheena waan laabnay qunsuliyadahooda sida Argentina iyo Brazil wadamada ugu taageerayaasha badan ayay kamid yihiin marka la yiraahdo dhanka ciyaaraha marka waxa hadda 80% caalamka 60 maalmood ayuu qofku ballanta ku heli karaa halka markii hore 6 bilood amaba ay ka badan sanad ay ku qaadan jirto waxaan kula talinayaa yiri dadka taageerayaasha inaysan sugin daqiiqada ugu dambaysa oo tikitkooda ay sii jirtaan waxana uu sheegay tikitkaada aad jar hadalkan waa hadal muhiim ah si fiican u dhageysta tikitkaadu macnaheedu ma ahan inaad visa heshay marka tikitka hesho kadib interview ayaad mari doontaa vetting ayaa lagugu sameyn doonaa haddii lagu approve gareeyo lagu ogolaado markaas kadib ayaad imaan doontaa marka waxa uu yiri hadda 6 toddobaad ilaa iyo 8 toddobaad ayay qaadanaysaa qofku inuu ballan helo marka uu tikit ka jarto safaaradda ama qunsuliyadda ballan ka qabsado markaas kadibna baaritaan lagu sameeyo interview la yeesho kadibna viisihiisa la siiyo haddii uu noqdo qof u qalmo marka su'aalo fara badan lagu weydiin doonaa magaaladu waa ciyaarta aad ka soo daawanayso waa magaalade ciyaartu waqtiga ay dhacaysa xitaa waxa laga yaabaa in lagu weydiiyo teamka aad taageeraysa maadaama wadankaadii Soomaaliya ka socotaa Soomaa wadankaadii kama qayb galaya kooxda taageeraysa marka qaar su'aalo waxa laga yaabaa in lagu weydiiyo aan teamka aad taageerayso yaa tababaro ama ciyaartooyda wax nooga sheeg iyadoo sidoo kale in lagu weydiiyo laga yaabaa arrintaasi marka waa arrimo muhiim ah oo loo baahan yahay dadku marka interview haddii aad ticket jarato waxyaabaha lagu weydiin doono xitaa marka aad Mareykanka timaado gudihiisa isla interviewgi waa laga soo hormarinaya waxa laga yaabaa in mar kale airportka lagugu weydiiyo marka waa wixii aad sheegtay xagga aad ku soo sheegtay markaad viisaha dalbanaysay iyo marka aad timaado waa inay is yeeshaan waa kan wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio arrimahaas isaguna ka hadlay So
deployed over 400 additional consular officers around the world to deal with that, in some cases doubling the size of the consular presence in our embassies in certain countries. And the good news now is that in about 80% of the world you can get an appointment within 60 days. It used to take, half a year or longer, and now sometimes it took, now you can get in less than 2 months, where in places it took over a year. In places, for example, like Brazil and Argentina, it took over a year to get an appointment. Now you can get in less than 2 months. So our advice to everybody is, if you have a ticket for any of the games, you need to apply if you haven't done so as soon as possible. Don't wait till the last minute. Your ticket is not a visa. It doesn't guarantee admission to the U.S. It guarantees you an expedited appointment. You're still going to go through the same vetting. We're going to do the same vetting as anybody else would get. The only difference here is we're moving them up in the queue. We're moving them up faster. But my advice to everyone that's watching around the world is, if you intend to come to the games, you have to have a ticket. You need to apply. Apply as soon as possible. You're going to get your interview within 6 to 8 weeks, and move forward from there. Don't wait till the last minute to do it. Thank you. wadankii gudihiisa Mareykanka lacala waaba timidba tigidkii waad jaratay viisihiina waad heshay wasaaradda amniga gudaha marka waxay qaabilsan tahay sugidda amniga gudaha wadanka gaar ahaan magaalooyinka lagu ciyaarayo 12 magaalo 600 milyan ayaa wasiirka amniga gudaha Kristen Noem waxay shirka jaraa'id ka sheegtay inay ay ku maalgeliyeen magaalooyinkaas sida tiknoolajiyada casriga marka ay garoomada la galayo marka ay raboorada laga soo dagayo arrimahaasi oo dalsi si nabad ah dadku ay ku imaadaan ciyaaraha ku daawadaan marka aad ciyaartaada daawato marka waxay tiri waxaan doonaynaa timely manner inaad ku baxdo waqtigaadi adiga hal game u timid inaad daawato halkii game waa ku dhamaaday waa inaad laabataa marka viisahaadu waqti uu leeyahay haddii kooxdaadii la reebay wadamada haddii wadan kasta marka la reebo wadanku wuu baxaa Soomaaliya taageerayaashiisu waa inay baxaan haddii marka aad isku adkayso Mareykanka aad joogto macnaheedu waxay tahay waa lagu soo qabanayaa waa lagu xirayaa waa lagu ganaaxayaa hal maalin oo kasta oo viisahadu dhaco wadanka aad joogto lacag ku dhawaad $1 amaba ka badan markaas kadibna waa lagu masaafurinayaa Mareykankana mar kale dib ugu soo laaban kartid si ay noqotaba maxaa yeelay waxa doonaysay wadanka inaad si sharci darro ku joogto Mareykankana sharci darro kuma joogi kartid Canada labada wadan xiriir ka dhaxeeyo marka haddii aad wadanka visa ku soo gashay macnaheedu waxay tahay Canada inta tagto iskama dhiiba kartid oo Mareykanka ay kugu soo celinayaan Mareykankuna waa ku qabanaya marka waxay tiri waxaan doonaynaa dadku markay yimaadaan oo ay ciyaarahooda daawadaan inay naga baxaan oo si nabad ah ay ku baxaan haddii aad isku daydo inaad sii joogto macnaheedu waxay tahay sharci darro ayaa wadanka ku joogaysaa waa lagu xiri karaa waliba muddo bilaa laga yaabaa inaad xirnaato kadibna lagu masaafuriyo iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana wasiirka amniga gudaha Kristen Noem waxay tiri Every department has been working, but the Department of Homeland Security is working on making sure people can travel here safely. They know that they're welcome to the United States, that each of these events will be cooperative events with our cities to make sure that security needs are met. We put out over $600 million worth of grants to the 11 host cities that they'll have the advantage to partner on technologies and screening technologies, drone technology, counter UAS as well will be implemented. So we'll be prepared to host it safely, but also with Marco's leadership at the State Department, making sure that people that come in on these tourist visas are coming in thoroughly vetted, just like anyone who would travel here, and they would come and enjoy our country, and then they would go home in a timely manner. So we're excited about that. هذه هذا ما سنتين أصحابتي إنت المركلة كل مدونه وصاحبكن علم وارو إذن للسدائية نبت قليل